wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire oo ku sugan wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeedhay wasiiru dawlaha dawladda Imaaraadka Carabta Ahmed Gargash kaasi oo ku aadanaa cidda ay kala heshiiyeen dawladda Imaaraadka Carabtu marsada magaalada Berbera innaka iyo Imaaraadka iyo innaka iyo DP World waa heshiisyo aynu laba daraf aynu ku galnay cid kale oo saddexaad oo wax saxeexday صحيح ميل كلي ما جرته واحد تفاهم وجرنا نقول كما هينو رنتي متفاهم جرنا رنتنا ما يقين سنين واي الصومالية واحد كل هذا هيبان جرين ببر أركن وارن كده حياة دولة الصومال لن تكون مسؤولة مرسوال لقوي دي وزير سعد علي الشرع قوان كاي حكومة أهان كقاضنا يان هذا الكاسي كسوي لي دولة الإمارات كعربتها waxau yiri bayaan baanu ka jeclaynaa in naga siiyaan arrinkaas oo arrin dii jiray ma aanu hayn anagu tan ognahay arrin jira arrinkaas runtii ma aanu hayn marka bayaan waanu weydiisanayna laakiin kulli waxa iska tixgelisay marka qaarkood waxa afka laga yiraahdo xaqaayiqo marka qaarkood isma waafaqaan oo qofku wadciga siyaasiga marka hadii ka jira ayaa laga yaabaa maartay soo tixgelinaya inuu yiraahdo waxyaabo aan maxaan ilaahay laga yaabo inaan xaqaayiq aan ahayn marka laakiin haddaan dib ugu soo noqdo heshiiska waa taas weeyay dadkeenu runtii ay daneynayaan meesha ma khiyaama jirtay oo dad kale wax ka seexay mise khiyaama ma jirin Soomaaliland iyo Imaaraadka ma kala seexday su'aashu markay taa tahay jawaabtu waxa weeye cid kale oo ku saddexaysay Imaaraadka iyo Soomaaliland saxiixaas ma jirin Cabdi Shakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa